maanta runtii waa munaasabad aad u weyn ee loogu talagalay in lagu xuso dadka naafada ama baahida gaarka ah qaba. waa markii ugu horeysay runtii sanadkan ee aan xusno ayada oo qaybtaasi ay ahayd qayb ku soo biirtay wasaaradda dhawaantan. waxaan runtii ugu jirnay halgan bal in ka qayb ahaan iyo dowrka ay leedahay mujtamaca waxa ay ugu fadhido aan in badan ka doodno. maanta waxaad moodaa inay imaanayso munaasabadii asaasiga ahayd ee arrinkaasi aan wax iska dhihi lahayn, iyada oo aan rajaynay inay tani u noqoto platformkii asaasiga ahay ee aan ka duulaynay si mawduuca asaga ah uu u helo attentionka uu u baahnaay. haddii ay ahaan lahayd ka wasaaradda caafimaad, haddii ay ahaan lahayd hay-adaha madaxa bannaan ee kala duwan, iyo haddii ay ahaan lahayd bulshada Soomaaliyeed guud ahaan. waxaan rabaa marka maantayto inay noqoto maalintaan u istaagayna arrinkaas, inaan ku astayno maalintii aan dareemaynay ahmiyadda ay leedahay mawduucaas uu leeyahay. inteenan maanta inta isugu nimidna bal inaan u istaagno arrinkaas isaga ah, inaan ku astayno maalintii aan dareemaynay ahmiyadda ay leedahay mawduucaas uu leeyahay. inteenan maanta inta isugu nimidna bal inaan u istaagno arrinkaas isaga ah, inaan u istaagno ee aan bilowno qaabkii aan wax kaga qaban lahayn. waan hubaa waan ku kalsoonahay in dunidu ay in badan ka baratay, annana aan ka faa'iidaysan karno, ugana faa'iideyn karno dadkeennan baahiyada gaarka ah qaba.